السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وين سلامين دمان ملو بدون كجتان وأنا قا إسماعيل يدفك جدا ونسوا إسماعيل أفشل كسر هذا مركل مقال عصب ابي وحكى سريع سار من هجي وحكى اللي حوس سار من هجي وما تخاف سار من هجي ادمي دون ديب سار من هجي اللي انت ما تعيد سار من هجي وما تخاف سار من هجي ادمي دون مقال عصب نهاية مقال كاس wiil Soomaali oo ku dhacay xanuunka ay wada garnaysan oo dunida sameeyay ila daawada muuqaalkaas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا أرتوى سلامتي لما أنت waan ka qaanay kulay wuxuu leeyahay intii soo duceysay ilaaha ku caafiyaan ku leenahay cudurka ku hayo ilaaha ka qaado caafimaad degdeg ayaan ku rajeynaynaa insha Allah taala وفي عنا يعني الحمد لله واحد لهذا الشيء أنا مال الحمد لله هذه أسفة عن تهاي وأوكي ما شاء الله إلهي عافمات كذا سياديو ما أنت سديد وأنت حنوصنا هاي ما أنت سديدات أي مرها إلهي يكو صيرة أنت سديد إيه الحمد لله معلوم ما أنت كتب بسوا معلوم ما أنت كتب بسوا وكسيفي أنا هاي بقول كيف بقول waxaan sida xanuunka caadiga waaye oo waxa la haasiyo qof walba ibn aadan uu ku dhici karaa qof walba xanuunsan karo wax dhib leh oo waa sax cudurkan qof walba oo bilaadan ah oo rabbi abuuray ayuu ku dhici karaa qof uu dhahayo maxaa la jirin kana weyn kana Soomaali kana jirkiis cadaan iyo kana jirkiis madow uu dhahayo ma jirto qof walba cudurkan wuu saameynana ilaahana qabto ay leenahay marka insha Allah taala qof walba digtoonow ha ku jiro sidaas ayaa muhiimad ah iyo waajibaadkana saaran inaan marno iyo dhaqaatiirta si ay leeyihiin inaan marno ayaa fiican sidaba marka insha Allah taala ilaaha ku caafiyo ayaan leenahay noo sii wada muuqaalka qof dhib leh oo wax dhib leh oo maanta qof khaas u ah ma jirabo ninkii ilaahay u qorantay dhimanayna waa dhimanaa waxa waaye qof loo talgalay waqtigiisa inuu dhaafo ma jiro muhiimadda waxay tahay qofka cudurka inuu dareemi karo waxa inaad dareemi kartid iyo meesha kaaga imaado inaad dareemi kartid ilaahay okay exactly waa sidaas cudurka kulay ma aha adigoo ma aha adigoo sarajif ama adigoo kaliga guriga joogo aadan meelna u dhaqdhaqaaqin inuu iska imaanayo dabcan adigoo kaba soo qaad waxaad aaday gym waxaad aaday meel banool lagu soo caarayo suuqaad aaday wax walba aad la kulmi kartaa qof cudurka haayo aad la kulmi kartaa marka sidaa daraadeed qofkaas aad ka sii qaadi kartaa ma aha qofka cudurka kaliya adigoon hal bil aadan guriga ka soo bixin inuu cudurku iska imaanayo ma aha dabcan laga yaabo inuu ilaahay wax walba waa qoraal laakiin waa hay tahay kaliya inaad gurigaada aad ku jirtid wanaagsan laakiin haddii aad mar banaanka aadid laga yaabaa qof qabo cudurka in uu ku saameeyo ama uu ku taabto ama qufciis ama hawadiis ay ku soo gaarto laga yaabo dad inta badan qof hadduu qufaca aragtid waxa laga yaabo inaad dhahdid qofkan hergab ayuu qabaa waayo hergabku waxa ma dhaamo markuu u horeyso markuu kugu dhacayo aad quficaysid waa iska shakanaysaa but waxaad u malaynaysaa inuu kahayo kaliya hergab okay noo sii wad muuqaalka akhriyo ku siiya alxamdulillah ina sorry qofka inuu dareemi karaa rabaa bas wixii haayo iyo meesha xanuunayso inuu dareemi karo maalinta ugu horeysa asku arkay waxa jimciye hadda soo dhaafay jimciyeedii ahayd gym ka imaaday gym aan jiray dabcan saa ogtiin baa meel gym aadaa gym kan jiray maalinta caadi oo soo alminday horta codkayga ma khulusin ها أنا ومقلة بقول إن شاء الله ذلك أنا إذا ورايا أنا يكون مقلة أنا رجينا إن شاء الله آمين يا رب وافقنا أنا إن شاء الله عدك يم خشين عدك يم خشين عدك يا دام خشين وكم خلنا يسوق
dabcan wuxuu ku jiraa Facebook live waayo wuxuu leeyahay codkayga haddaba maqashiin isoo qoro waan ku maqalnaa walaal boqolkiiba boqol codkaaga okay noo sii wad xanuunku siduu kuu soo gaaray noo sii sharax ها marka jimcihii hadda lasoo dhaafay jimceeda ahayd alxamdulilah meesha keliya oo shaki qabo jimka waaye jimka aan aadi jiray okay keliya mees asaga shaki uu qabo ama shaki ugu jira keliya waxaa weeye jimka waayo wuxuu leeyahay jimcihii maanta ahayd muuqaalka hadda waxaan dubahaa waa maxaa la jiri habeen ay arbaca ka baxayso khamiis ay soo galayso aan dubahaa muuqaalka marka asaga hadda wuxuu leeyahay habeen jimco ah ama maalin jimco ah ayaan jimka aaday laakiin jimcaheeda ku xigay ayaan dareemay okay saasay tahayne saasay tahayne jimka waxaan u qaadan jiray daawada gacanta lagu dhaqdo daawadaas u qaadan jiray markaan galaa daawadaas ay u qaadan jiray la dhaho sanitizer okay way fiican tahay mar walba aad magaalka aadaysid inaad jaabkaada ku wadatid ama aad boorsadaada aad ku wadatid bahasha gacmaha la iska mariyo la dhaho sanitizer way fiican tahay markaan galaa iyo markaan kasoo baxayo waa marsan jiray laakiin waxaan u maleynayaa markuu galaayo iyo markuu kasoo baxayo wuu marsan jiray laakiin waxaan gaalada ay soo sameeyeen ay leeyihiin sanitizer gacmaha la marsanayo ma aha inay wax ay kaa celinayso kaliya waa digtoonaan laakiin wax walba qadar rabbi jimka dhexdiisa waxaa ku taalo tubo biyaha laga meerto oo biyaha dadka dhan ay ka wada cabaan markii inaan tubadii gacanta ku qabsaday oo biyihii meesha mar walba aan kusoo shubanayay kadib aan dhiiday inaan sanka iyo afka sidii ku taabtay aan maleynaa maalinta jimcaha jimkaan ka imaaday alxamdulilah that's a problem shidida waxaa dhibka keenaya waa intaas keliya waayo meel qof kale uu taabtay adoon gacmaha iska soo dhaqin ama aad gacmaha iska soo nadiifin haddii aad afka ama sanka ama hindhaha aad ku qabatid cudurka laba jeer wuu kugu dhacaa asad wuxuu leeyahay asoon waxba marsanin gacmaha uusan sanitizer uusan marsanin uu meesha tuubadu aaday wuxuu damcay inuu isku soo nadiifiyo markuu isoo gacmo isku soo nadiifinahayo wuxuu leeyahay sanka aan ku qabsaday marka dabcan laga yaabaa marka uu qabanayo qof cudurkaas qabo asna uusan ogeyn ama laga yaabo inuu ogyahay laakiin xaasidnimo ay ka tahay inuu dadkan kale uu ku beero laga yaabo inuu asagana uu taabtay dabcan sidaas la dhihi karaa inuu asagana qof kale uga qaado jimkaan ka imaaday alxamdulilah waa fiicnaa caafimaada qabay wax maanta aan sheeganayo oo xanuun ee markaas jiray ma jirin jimkaan ka imaaday boorsadeedu waa batay guriga markaan soo galay waa caadi u joogo galabtii aanu tv fiirsanayo oo telefishinka shata tv fiirsanayo gurigan la fiirsanayo qandha isoo fooshay qandhadii kadib maashi okay jimka markuu kusoo laabtay uu jimka ka imaaday uu xaafad imaaday wuxuu damcay inuu tv iska dawado laakiin isla markaasba isla maalintaasba wuxuu isku arkay qandho yar ama qandho uu isku arkay dabcan muusan iska shakin wuxuu u maleeyay keliya inay qandho wax kale ay tahay okay meeshaan fadhiyaan ku hurday marka meesha oo telefishinka dadka la fadhiisanaya la fiirsanaya meeshaan ku hurday qandhaha soo qabatay zaid ee waa dareemay marka ilaahay akhliyo ku siiyay qofka ibnaadinka meesha xanuunooso madax xanuun haayo hadduu neerfaha xanuunayo haddii maskaxda xanuunayso inaad dareemi kartid aan rabaa dee dabcan waxaan dareentid hargabna weligaa kugu dhici jiray hargabka inaad sheegtid wuxuu yahay ama caloosha ma ka xanuunayso ama dhabarka ma ka xanuunayo meesha ku xanuunayso exactly inaad sheegi kartid aa wanaagsan alxamdulilah meeshii iska seexday habeenkii sidii aan ku seexday subaxdii baa soo kici waayay marka subaxdii labaad sariirta waa kasoo degan waayay sariirta iska saarnaa subaxdii sariirta iska saarnaa qandho zaid ay heesay qandhadii kadib murqaha ay ugu darsamaday inuu murqaha zaid iyo xanuunaan gaar dhabarka murqaha dhabarka ku yaalo dhabarka caadiga ma labada murqo dhabarka geesihiisa ku yaalo iyo cajaraha zaid iyo xanuuna dhabarkii cajaraha ay xanuunayaan waa isdareemay guriga markaas familkan waxaan dhahay anigu xanuunsanaya xaaladeeda caadi ma ahan oo
يعني yaa laysoo dhawaan ha laga sugto dabcan waa iska ogtiino maasha allah qofkan uu fiican yahay uu iska shakiyey dadkiisa ama familkiisa wuxuu u sheegay ama uu ku wargeliyey in aysan usoo dhawaan waayo inkasta uu xanuunsan yahay xanuunkiisna uusan hubin wuxuu ku dhahay aniga waan xanuunsanahay ayaa la soo dhawaan dadka qaar waxay dhahayaanba xitaa ayako xanuunsan ay dadkooda markay usoo galaan iska salaamayaan qofkaasna qof kale uu sii gudbinaa sidaas cudurka uu kusii faafa marka waxaa fiican sideeda marka cudurka aad qabtid ama aad ka shakishid inaad cudurka aad leedahay waxaa fiican inaad qofka familkaaga ama saaxiibkaaga inaad u sheegtid inaad xanuunsan tahay maasha allah taas waan kugu raacsanahay familkaaga ma kaa aaminayaan yani horta aniga dhibaatada aqabna waxay tahay cid kaa aaminaysa male familka waa laga diidiyo waxaa la dhahay may waa caafimaad qabtaa hergeb le waxaan hasaadsanin dabcan asina hergeb le waabo yani hergeb camal sida hergebka exactly hergebka aad arkaysid asina ku arkaysaa familka dhan waxay dhahayeen hergeb waaye يعني wax kale ku hayo ma jiro dabcan shaydaanka iskanaar hasaadsanin okay adayday qof xanuun saadsanayo ibn aadan ilaahay oo ma jiro waxaan dhahay hergeb adduunyada kale waa la arkaa laakiin waxaan dareemayo hergeb maalintii labaad haddana qandhada saasay ii saarneed xabadka zaid ii xanuunayay dhabarka zaid ii xanuunayay murqaha zaid ii xanuunayay waa dareemay habeenkii maraa mantagay hamra masqusha aadiyo mantagay subaxdii saddexaad markaan soo kacay ama masqusha galay wejigana iska dhaqmaagay waa indhayga hadda alxamdulilah way rooyinbo waxa waaye cadaan waaye musqusha markaa galay maraayada kor asaas fiiro isdhahay indhaha dhina ay gudutay indhaha dhan waxay qofka naqanayaan sida kaano inuu qofka hor naqanayo filimada horarka maaragteen waraabaha camal inuu naqanayo indhayga waxaa kasoo baxay xidido gudguduudan gudaha marka alxamdulilah hadda wuu fiican yahay hadda waa roon lahay indhaha xididaha kasoo baxay gudguduudan marka exactly markaas dareemay inuu wax kale yahay markaas dareemay indhaha markay saas ii guduteen arkay xidido kasoo baxay iyo bishimihii fiiriyay bishimaha qofka waxaa arkay marka sun camal madow ay naqanayaan inuu qof wax sun inuu gaaray camal bishimihii madow soo galay maalinta saddexaad ay ahayd maalinta afraad exactly zaid xanuunka isoo foolaan aad dareemay wejigeena inuu isbedelayo korka dhinaca qofka is dareemayo waxa dareemaysaa inuu korkaaga wax ku jiro waxaan caadi ahayn inuu ku jiro dareemaysaa marka maalinta afraad aan markay isbitaal wacana oo isbitaal la xiriira wili saastay guriga waa la diidiyo waxaa leedahay waxa waaye hergeb la wiilo ku hayo xanuunka ma ku hayo isku joog familkan oo dhahay iga sigta yaa leedahay mayo hergeb la ku hayo marka sidaas indhahaygaan tusiyey dadka guriga waxaan dhahay indhahayga waa aragtiin maayo iga sigta xaaladeeda saasay noqonaysaa almuhiim alxamdulilah maalinta shanaad aan doctoorka wacnay doctoorka xaaladii u sheegnay isaa dareemayo naqaska inuu igu soo dhedhegayo doctoorka wuu dareemay isla markiiba wuxuu dhahay saas waa doctoorkaas intaan la hadlin doctoorka wadanka jooga doctoorka intaan la hadlin yar Soomaali doctor oo Zool Portal Beachkiisa soo dhigayo oo Yaasiin la dhaho oo Shiinaha joogaan la xiriiray doctor Soomaali doctorkii Facebook la hadlay marka xaaladeedu baa doctor waxaan dhahay saas ay hayso saas isku day doctorka Soomaaliga wuxuu dhahay yarkii doctor Yaasiin ilaahay khayr asiyo wuxuu dhahay doctor Yaasiinka wuxuu dhahay niyo calaamadaha oo baalgas lagu garto wuu ku hayaa marka laakiin nin dhalinyaro tahay asaan niyadii dhis maasha allah dhakhtar jooga wadanka China uu la xiriiray sidoo sheegayo dhakhtarkii uu u sheegay xaaladiisa guud wuxuu ku dhahay wili waxay tahay qof dhalinyaro ah wili jirkaaga difaaca uu adag yahay laakiin kaliya waxaad barisaa waxay tahay inaad cunto badan aad cuntid waayo hergeb markuu kugu dhaco sideeda waxaa fiican sida qufac uu kaaga istaago waxaa fiican inaad isticmaashid ama aad cuntid cunto fara badan oo jirkaaga awood u yeelayo iyo maraq ama sanjabiil marka dhakhtarkiisa sidaas ku yiri cunto badan cun oo nafaqo leh si jirkaada uu awood yeesho laakiin mar hadduu jirkaada uu laciif yahay bis uu sayid ku sameynaa ilaa beerku guduhu sii gala
qandhada iska jabi, mar walba qubeyso mar walba qubeyso mar walba qubeyso oo cunto fiican cuno, fitamiinaadna qaado, wax daawe ama doctorka Soomaaliya markuu saas ula taliyay uuna ii sheegay inaan ku celiyo kuwan wadankan telefoon u diro, kuwan Ingiriiska waa markaa haddana la xiriiray marka u sheegay xaaladeeda see tahay, waa dareemeen isla markii waxay dhaheen dadka ka dhexbax, dadka ka fogow cudurka waaye waxaas, laakiin dadka ka fogow, dad hayuusan kusoo dhawaanin gurigaaga keliya ku jir, isbuuc ku haya haddii ugu badato, haddii ugu badatan 2 isbuuc ku hayna, 2 isbuuc kadib ina isbedeshida laga yaabaa ku fiicnaatid. Haddii 2 isbuuc uu kaaga bixi waayo dhaheen waxay ka zaa'ida oo isbitaal u baahan yahay, laakiin haddii 2 isbuuc ku ekaatidna waxa waaye way kugu filantahay. Wallaahi marka alxamdulillah maasha allah way fiican tahay. Hadda anaka meeshaan ku suganahay Kenya, Nairobi gaar ahaan, qofka hadduu cudurka u haleelo qofka waa laga qaadaa, dambe ma arkis xitaa adiga qofka la dhahayo gurigaaga joog, wax laguma sheega xitaa saan jeclahay. Qofka waa la qaadaa, isbitaal la geynaa mise meel keligiis la geynaa, ama dadka cudurka ay qabaan isku meel isu keena. Marka qofkaas ilaa iyo hadduu ficnaado waxay leeyihiin qofkaas hadduu ficnaado ama cudurka uu kasoo bogsoodo oo ficnaado, gurigiisa dib loogu soconaa. Laakiin hadduusan ficnaanin oo maxaa la jiray u dhinto cudurkaas, asigii familigiis isma arkayaan, keliya familka waa la soo waca, waxaa lagu dhahaa wiilkii hebel haba ama gabartii hebel hebeleed way dhimatay la soco. Ma jirto, waa la duuga iyo waa la aasay, waa lagu tukan haba yarata ma jirto. Isagii leeyihiin ilaahana qabto cudurka insha allahu tacaala. So mid aadin sheegaya mise aadin ku baananayo waxay tahay qandho iyo murqo xanuun. Dabcan waa taqaanaa qofka hergebka caadiga iyo kan isku mid ma ahan exactly. hergebka camal ku soo galaya, laakiin hergeb ma ahan, yani wax ka duwan waa dareemay, indhahaaga ku guduudanayo, faruuraha waa ku madoobaanayaan, wejigaaga waa isbedelaya kalarkiisi wejigaaga kalarkiisi waa isbedelaa. inaad dareemi kartid marka waxaa jeceshahay iyo wixii kuu dhow iyo wixii muslim ah ka fogaatid exactly inaad ka fogaatid dadka, aad ka dheeraatid. qandhadana qof walba jirkaaga taabta mise qof walba xabadkaaga taabta dareemayo, qandho zaid ku la dareemaysa. madax xanuun waalin uu leeyahay, madaxa labadaas geesaha laga qabanaya, madaxa labadan gees, madax xanuunka caadiga aan qana ma labada geesaha laga qabanaya. waqti ka badan inaa cuntid mar walbo, qandhana isku aragtid inaad qabeysatid bes saasaa lagu talina adigoo dirta qabeeso zaid inaad heshid, cuntada fiican inaad cuntid, cuntada ka cashashin. dad waxaa jira markay xanuunsadaan cuntada ka go-ayo, cuntada inaad ka go-in. ya muhiimad kale waa intaas aan rabno inaan ka dhigaysano qofka. marka hore ilaaha ku caafiya aan leenahay 100% ilaa ku duceeyna insha Allah taala, iyo dhammaan muslimiinta inta cudurkan uu ku dhacay iyo inta uu soo ku dhacay waxa leenahay ilaahana qabto cudurkan, inta ku dhacayna waxa leenahay ilaahay caafimaad degdeg ilaahay idin siiyo. kulay saad wada maqlayseenba, mar hadduu cudurku uu ku qabto waxaa fiican siyaada inaad qofka aad saxaabka ama familka aad ka dheeratid, aad guriga kaliya aad ku ahatid, aad mar walba ay qarad ay ku soo qabato, mise waqti walba saacad mise daqiiqad ku maxaa la half minute marka la marayo 3 daqiiqo kale marka la marayo inaad musqush aadidaas qabaystid, qandho marka ku soo qabatid aad kaniin qandho jibin aad laqtid fiican, iyo cunto badan inaad isticmaashid wanaagsan. marka insha Allah taala waxaan dhihi lahaa kaliya dhammaan muslimiinta meel dunida ay ka joogaan inuu caafimaad qaar qab ilaahay siiyo, ilaahay muslimka ka qabto cudurkan oo dunida ka faafay aan leeyahay. wax kale oo dhihi karna ma laha. muuqaalka inta uu eg yahay waxayna bilaabay muuqaalka xiga anigu caafimaad qabo, idigu caafimaad qabo, inta kiyadkiisa nabad geliyo.